cadaalad lagu dhaqo inaana noqon telitalis isagu tala ku hogaamiyo maxkamadda ay noqoto in dhammaan taranjurooyinka dawliga sida ay u kala sarreeyaan ay midowga shaqadiisa ugu madax banaanaan taasoo ayna shakhs u haddoo mid dadkoo dhan ay talinayaan taas waxay badbaadinaysaa aniga badbaadinaysaa inaan khaladaad gelin idinkana way badbaadinaysaa marka ugu horreyn kolle waxyaabaa ii qodaysna oo ahaa xuquuqda insaanka kow in horta waxa laga qabto inaan iscafino waa muhiim inaan wixii hore ee dhacay ka tagno waa muhiim laakiin haddana dadkii dhibaatooyinka ku dhaceen inay iyaguna dareemaan inay ka mid yihiin bulshadina iyaduna waa muhiim taa macnaheedu waxaa weeye iyagoo oo kuwii dhirta geystay la dhibaatay kuwii dhirta ku dhacday wax loo qabto oo maaragtay si ay bulshada ula sinaadaan oo xooga saari doona xoriyatu qowlka anigu dadka aad u qoraan ahaan jiray xoriyatu qowlka iyo maaragtay jecel maanta marka inaan gruubkii noocaas ahaa aan xorriyaddooda usii kordhiyo ayaan diyaar u ahay qof kasta innagu waxyaalaha weliba u naqaan dacaayad baa jira laakiin dunida kale industry ah lagu shaqaysto maraykanka iyo ingiriiska iyo qofku inuu madaxda faalleeyo oo dhaqankooda iyo muuqaalkooda iyo hadalkooda wax ka sheego lacag baa lagu helaa waa industry dhan oo lagu shaqaysto innaga xaggeena waxaa la yidhaha dacaayad baa layaa wada isxidhaa aniga dacaayadta marka horta wixii dacaayadstayaalaha maanta xor baa tihin waxaad tamataan kartaan laba qodob baan la ogolayn oo sida qawaaniinta adduunka iyo waddankaba ah in qabaa'il la isku dhufto oo reer hebel ka kac oo reer hebel laa la yidhaah waa la odhan karaa reer hebel baa waxbadsaday waxaas dhib male waa la odhan karaa mustaqbal meeshii yimid oo waxaa yaacaya reerkoodaa soo baxay waxaas dhib male laakiin reer hebel oo reer hebel ku duul incitement baa iyadu waa qalad waxaa kaloo qalad wixii diinta iyo akhlaaqda ay diidayso sawirro qaawan aflagaato ay noocaas waa reebayi wixii intaa ka baxsan wax walba waa laga hadli karaa dastuurka etoobiya laga hadli karaa ma ogolin baa la odhan karaa dalkan ka mid yihiin baa la odhan karaa waxaa la odhan karaa muxuu ahaa madaxweynuhu waa saasaa la odhan karaa shaksiyadiisaa laga hadli karaa qofkii ay dambijiisku gaarsiiyo inuu dhaafo waxaa ku saabsan madaxweynaha iyo saaxiibadii iyo wasiirada isaga u taalla bulshaday kaaga qabato dawladda u xakamaymayso bulshadaa qabanaysa laakiin dawladdu ma odhanayso sharaftii madaxweynaha ku xadgudubtay afrikaanka inta baa isku xidha waxaas waad ogtihiin marka madaxweynuhu dadku la mid yahay haddii adiga wax lagaa sheego maxamadaysna waa la xaman karaa taa horta inaad ogaataan dacaayadana adigaa la idin bilaabaya meesha laga yahay marna inay ileeda haysta marna ina cabsiyad dadkii aan cagaha la-ayn indhaha la-ayn away wada